السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي wanaagsan daawadayaal meel kasta dunida nagala socotaan waa habeenimo sabti ah bisha January ay soo galayso iyo sanada cusub ee 2022 qodobada barnaamijkeena ku maqli doontaan waxa kamid ah ciidamada kooxda TPLF-ta weerar culus ku qaaday magaalo ku taal xuduudka gobolada Axmaarada iyo Tigrayga. dowladda federaalka dalka Itoobiya oo ka xanaaqay in arrimahooda uu Mareykanku kala xajoodo wadanka Kenya isla markaana jawaab kulul ka bixiyay. wadanka Koonfur Afrika waxa laga qaaday bandowgii saarnaa ee la xiriiray xanuunka cusub ee Omicron oo wadankaasi farabaan ku hayay isla markaana halkaasi ka soo bilowday. qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ee barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibayaal soo dhawaada. aan ku bilownay ciidamada kooxda TPLF-ta ayaa maanta weerar culus ku qaaday magaalo ku taal xuduudka u dhaxeeya gobolada Tigrayga iyo waliba Axmaarada. magaaladan ku taal Tigrayga iyo Axmaarada dhexdooda oo lagu magacaabo Adi Arkay ayaa la sheegay in ciidamada kooxda TPLF-tu ay weerarkaasi ku ekeeyeen maanta duhurnimadii. ciidamada kooxda TPLF-ta ayaa guulo ka sheegtay weerarkaasi iyagoo sheegay inay gudaha u galeen magaaladaasi isla markaana ay halkaasi isaga baxeen ciidamada dawladda iyo kuwa Axmaarada ee halkaasi ku sugnaa. balse dawladda federaalka dalka Itoobiya oo ka jawaabtay arrimahaasi ayaa sheegtay in magaaladaasi Adi Arkay ay ku sugan yihiin ciidamada dawladda iyo waliba ciidamada deegaanka Axmaarada. kooxda TPLF-ta ayaa baryahanba weerar ku hayay magaalada Gondar oo aan ka dheerayn magaaladaasi Adi Arkay oo ku taal xuduudka Axmaarada iyo Tigrayga. TPLF-ta ayaa horay u weerartay magaalada Gondar oo ay sheegeen inay halkaasi hoobiyaal ku garaaceen isla markaana ciidamada dawladdu ay halkaasi jawaabo culus ka bixiyeen. waxaana magaalada Gondar oo ah magaalooyinka ugu waaweyn ee ku yaala gobolka Axmaarada ku sugan ciidamo fara badan oo ka socda dawladda federaalka dalka Itoobiya si magaaladaasi looga difaaco kooxda TPLF-ta oo magaalada weeraro kala duwan ku soo qaada. TPLF-ta ayaa rabtay inay dib ugu soo rogaal celiso gobolka Axmaarada iyagoo weeraro goos-goos ah ku qaaday magaalooyin ku yaala gudaha gobolka Axmaarada iyo waliba xuduudka u dhaxeeya iyaga iyo gobolkaasi Axmaarada. ciidamada dawladda federaalka dalka Itoobiya oo wali dagaal culus kula jira kooxda TPLF-ta ayaa sheegay in kooxdaasi aanay haatan tabar badan lahayn isla markaana aanay jirin meel ay qabsan karayaan. waxay sheegeen inay soo qaadayaan weeraro fulinimo ah oo ku dhufo ka dhaqaaqa isla markaana ay ciidamada dawladda federaalka dalkaasi Itoobiya ka feejigan yihiin khatarta kooxdaasi. balse ciidamada TPLF-ta ayaa horay u sheegay inay la wareegeen magaalooyin ku yaala xuduudka Axmaarada iyo Tigrayga. magaaladan Adi Arkay oo maanta ay gaadheen kooxda TPLF-ta isla markaana ay weerar culus ku ekeeyeen ayaa la sheegay inay wali ku sugan yihiin ciidamada dawladda isla markaana ay halkaasi difaac xoogan ka galeen. ciidamada dawladda federaalka dalka Itoobiya ayaa haatan u muuqda kuwa maanka ku haya khatarta kooxda TPLF-ta haddii ay gudaha u soo gasho gobolka Axmaarada isla markaana raba inay weeraradaasi ku ekeeyaan gobolka Tigrayga. waxaana baryahanba ciidamada dawladdu ay weeraro culus ku qaadayeen kooxda TPLF-ta gudaha gobolka Tigrayga iyaga oo u muuqday inay ka hortagayaan weeraro kooxda TPLF-ta ay ku soo qaado ciidamada dawladda. balse ciidamada dawladda federaalka dalka Itoobiya ayaa sheegay in haatan aanay jirin wax khatar ah oo ay ka cabsanayaan oo kooxda TPLF-ta xaggeeda kaga iman karta. dawladda federaalka dalka Itoobiya ayaa sheegtay in haatan awoodda kooxda TPLF-ta la wiiqay isla markaana aanay haweysan karin inay dib ugu soo laabato goboladii iyo waliba magaalooyinkii laga saaray. ciidamada dawladda ayaa wali weeraro kaga haya kooxda TPLF-ta dhowr furimood oo ku yaala gudaha gobolka Tigrayga. waxaana ka mid ah meelaha dagaalada xoogani ay ku dhaxmarayeen kooxda TPLF-ta iyo ciidamada dawladdu magaalada Abala oo ku taala xuduudka gobolka Canfarta iyo waliba Tigrayga isla markaana aan ka dheerayn magaalada caasimadda u ah Tigrayga ee Makale. furinta kale ay isku wajahayaan TPLF-ta iyo dawladdu waa magaalada Koram oo aan ka dheerayn magaalada weyn ee Alamata oo ciidamada dawladdu ay ku sugan yihiin isla markaana magaalada Koramna ay sheegeen ciidamada dawladdu inay guud ahaanteedaba la wareegeen. waa labada furimood ee haatan ugu waaweyn ee ciidamada dawladda iyo kooxda TPLF-tu ay isku horfadhiyaan
balse kooxda TPLF-ta ayaa rabta inay laftirkeedu furto furimo cusub oo ciidamada dowladda ay kaga soo weerari karayso islamarkaana ay dagaalka ku ballaarin karto. waxaanay qorsheynaysaa kooxda TPLF-tu inay ciidamada dowladda u dabamarto gobolka Axmarada islamarkaana meelaha is leedahay ciidamada dowladdu way ka maqan yihiin ama way ka jilicsan yihiin ay weerar ku qaado si ay u dhabarjabiso ciidamada dowladda ee ku maqan gobolka Tigrayga. dhinaca kale dowladda federaalka dalka Itoobiya ayaa ka xanaaqday in arrimahooda uu wadanka Mareykanku kala xaajoodo wadanka ay dariska yihiin ee Kenya. dowladda dalka Mareykanka ayaa sheegtay inay horay ula xiriiray madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta islamarkaana ay kala xaajootay arrimaha Itoobiya iyo waliba Soomaaliya. waxa uu xogayaha arrimaha dibadda ee wadanka Mareykanka Blinken uu sheegay inuu telefoonka kula hadlay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta islamarkaana uu la soo qaaday oo una kala xaajooday arrimaha wadamada ay dariska yihiin wadanka Kenya ee Itoobiya iyo Soomaaliya. dowladda Itoobiya ayaa ku boorisay wadanka Mareykanka inuu xiriir diblomaasiyadeed oo toos ah la sameeyo halkii uu Kenya kala hadli lahaa arrimaha khuseeya Itoobiya. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya Dina Mufti ayaa shir jaraa'id ku sheegay in xukuumadda Washington iyo wadamada kaleba ay soo dhaweynayaan inay wada shaqeyn dhinaca diblomaasiyadda ah ay la wadaagaan dalka Itoobiya, balse dowladda Itoobiya aanay marnaba aqbali doonin in dowladdaasi wadanka Mareykanku ay arrimahooda kala hadasho wadanka ay dariska yihiin ee Kenya. waxa uu sheegay Dina Mufti inay ceeb tahay in wadanka Mareykanku uu arrimaha dalka Itoobiya kala xaajoodo wadan kale halkii ay arrimaha khuseeya Itoobiya u qaadi lahaayeen meel saddexaad. waxaan ku casuumaynaa Mareykanka iyo dalalka kaleba inay si toos ah noola macaamilaan annaga, ayuu yidhi Dina Mufti, afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya. afhayeenka ayaa u muuqday inuu soo gudbinayay fariin ka turjumaysa sida ay Addis Ababa uga cadhootay tallaabada uu qaaday Mareykanku ee uu kula xidhiidhay wadanka ay dariska yihiin ee Kenya islamarkaana uu kala hadlay arrimaha khuseeya dalkaasi Itoobiya. Dina Mufti ayaa intaasi ku daray wasaaradda arrimaha dibaddu waxay ku guuleysatay inay ilaaliso madaxbannaanida Itoobiya iyadoo dusha u ridanaysa cadaadis uga imanayay golaha ammaanka ee qaramada midoobay islamarkaana dhiiri gelinaysa dhaqdhaqaaqa dalalka Afrika, ayuu yidhi. waxa uu sidoo kale sharaxaad ka bixiyay xaaladda dalka Itoobiya oo dagaal sokeeye ku jirtay wax ka badan hal sano. hadalka ka soo baxay xukuumadda Addis Ababa ayaa daba socday warar sheegayay in xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka uu madaxweyne Kenyatta kala hadlay arrimo ku saabsan dalka Itoobiya iyo waliba Soomaaliya, waxaana xukuumadda Addis Ababa ay ka xanaaqday in arrimaha dalkaasi lagala hadlo xukuumadda ka dhisan Nairobi. haatanna Koonfur Afrika. dowladda dalka Koonfur Afrika ayaa lagu soo waramayaa inay meesha ka saartay bandow ka mid ahaa tallaabooyinkii ay xukuumaddu ku xakameynaysay faafitaanka cudurka COVID-19. waxay dowladdu intaasi ku dartay in toddobaadkii ugu dambeeyay xaaladaha caabuqa ay hoos u dhaceen 30%, sidoo kalena ayna badnayn dhimashada halkaasi ka dhacday. sidaas awgeed la fududeeyay xayiraadaha saarnaa wadanka. bayaan ay soo saartay madaxtooyada Koonfur Afrika ayaa lagu xusay inay yaraatay tirada dadka uu soo ridanayo cudurka coronavirus islamarkaana xukuumadda ay fududeynayso guud ahaanba xayiraadihii saarnaa dalkaasi Koonfur Afrika. ilaa iyo hadda waxaa gudaha dalkaasi laga diiwaangeliyay in ka badan 3.4 milyan oo ah xaaladaha cudurka COVID-19, waxaana halkaasi xanuunkaasi ugu dhintay 91,000 oo qof. bandowga meesha laga saaray ayaa Koonfur Afrika ka jiray laga bilaabo saqda dhexe ee habeenimo ilaa iyo 4 aroornimo. akhiirta sharafta leh wada nagala socoto intaas waxaan ku soo koobaynaa guud ahaan wararkeena soo gaadhay. inta ku kulmayna warkan warka xiga waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.